Waa maxay hepatitis B ama cagaarshow? Hepatitis B waa cudur fayras ah oo ku dhaca beerka, wuxuuna sababi karaa barar, dhaawac, iyo shaqo la'aan beerka. Fayraska hepatitis B wuxuu noqon karaa acute mid degdeg ah, wuxuu qaataa waqti kooban, qofka badankiisna wuu ka bogsadaa. Chronic mid raaga haddii uu jirka ku sii jiro in ka badan 6 bilood, wuxuu noqonayaa mid joogto ah, wuxuuna sababi karaa cirrhosis nabaro ku samaysma beerka, kansarka beerka, beerka oo shaqada gabaa. Sidee ayuu ku faafaa? Wuxuu ku faafaa marka dhiig ama dheecaan kale sida shahwo ama dheecaanka taranka lab ama dhadig uu galo jirka qof kale. Dhiig la isku shubo baaritaan la'aan ama qalab caafimaad aan nadiif ahayn oo loo adeegsado dhowr qofood. Galmo aysan diinta Islaamka banaynin sida sinada. Sidoo kale hooyada uurka leh way u gudbin kartaa uurjiifka fayraska cagaarshowga. Isticmaalka qalab la wadaago, maqas, irbad, caday, iyo wixii la mid ah. Calaamadaha lagu garto: jaalayn indho iyo maqaarka oo jaalle noqda, daal fara badan, lalabo, calool xanuun iyo hunqaaco, cunto xumo ama teedka oo yaraada, kaadi mugdi ah, saxaro midabkeedu caddaan yahay, xanuun dhinaca beerka xagga midig ee caloosha. Qaar calaamadaha cudurka kama soo muuqdaan, gaar ahaan carruurta. Sidee loo ogaadaa? Tijaabo dhiig si loo baaro haddii hepatitis jiro iyo heerka uu gaarsiisan yahay. Tijaabooyinka beerka ALT/AST si loo eego in uu beerku dhaawac leeyahay. Baaritaanno kale ultrasound ama NIPT ah. Daaweynta hepatitis B haddii uu yahay mid ku meel gaar ah, acute gooni ah looma baahna badanaa. Qofka waa in uu nastaa, cabbaa biyo badan, cunaa cunto nafaqo leh. Waa in si joogto ah loola socdaa xaaladda beerka. Haddii uu noqdo mid raaga chronic, bukaanka waa in la siiyaa daawooyin lid ku ah fayraska antiviral oo kala ah tenofovir kaniini ama irbado, entecavir kaniini ama irbado joogto ah oo lagu eegayo xaaladda beerka. Xaaladaha halista ah waxaa loo baahan karaa in la beddelo beerka, liver transplant. Ka hortagga hepatitis B. Tallaalka hepatitis B waa tallaal badbaado leh oo si weyn u yareeya halista. Ilmaha waa in lagu tallaalo 24 saac ee ugu horreeya markii ay dhashaan. Ka fogow galmada xaaraanta ah sida sinada. Ha la wadaagin irbad, maqas ama qalab kale. Dhiigga la isku shubo waa in la baaro. Haweenka uurka leh waa in la baaraa lana siiyaa daawo ku habboon xaaladdeeda caafimaadka si aysan ugu gudbin fayraska uurjiifka caloosheeda ku jira.